dunideenna marka dalalka laga yimaado caasimadaha ayaa iyaguna ku tartamaya baaxaduleeda quruxda nadaafadda iyo kobaca dhaqaale taa ayaana inagu riixday inaan doorkan qayb ahaan isdul taagno magaalooyinka Afrika ee dhinaca baaxadda ama ballaarka dhuleed ku tartamaya qaaradda weyn ee Afrika oo ka kooban 54 wadan waxa ay sidoo kale leedahay magaalooyin bilic iyo ballaarba ku tartami karaya kuwa ayaynuna 8 kamida muuqan kuugu warinaynaa falowda haddaad boggan ku cusub tahay muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo kuna soo dhawow xogta 8 magaalo ee dhul ahaan ugu ballaaran qaaradda Afrika. 1 Dar es Salaam Tanzania baaxaduleeda Dar es Salaam waxa lagu sheegaa 1590 kiiloomitir oo laba jibaaran macnaha Dar es Salaam waa hoygii nabadda waana magaalada ugu weyn iyo caasimadii hore ee Tanzania dadka ku nool Dar es Salaam oo lagu qiyaaso 6.8 milyan oo qof ayaa ka dhigaya magaalada dadka ugu badan ku nool yihiin bariga Afrika iyo magaalada toddobaad ee Afrika ay ku nool yihiin dadka ugu badan sidoo kale Dar es Salaam waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu kobaca badan dhaqaale ahaan qaaradda. 2 Johannesburg South Africa baaxaduleeda Johannesburg waxa lagu sheegaa 1645 kiiloomitir oo laba jibaaran macnaha magacuna waa goobtii dahabka ahayd magaaladani waa tan ugu weyn wadanka Koonfur Afrika iyo tan kontonaad ee dunideenna ugu weyn magaalo ahaan waa xarunta gobolka weyn ee Gauteng ka oo ah kan ugu dhaqaalaha badan dalkaas Koonfur Afrika. Johannesburg waxa la sheegaa inay ku nool yihiin 5.7 milyan oo qof waxayna ku caan tahay tartankii koobka adduunka ee sanadkii 2010 lagu qabtay magaaladaas. 3 Abuja Nigeria baaxaduleeda Abuja waa 1769 kiiloomitir oo laba jibaaran magaaladani waa caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Nigeria waxaana ay ku taal bartamaha wadanka caasimadnimada waxa loo aqoonsaday sanadkii 1991 oo ay booska kala baxday magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan Nigeria ee Lagos sida qaramada midoobay laga soo xigtay. Abuja waxa ay ka mid tahay caasimadaha ugu degdega badan koritaan ahaan adduunkeena tirada dadka Abuja ku nool haatan waxa lagu qiyaasaa 4 milyan oo qof goobaha ay ku caan tahayna waxa ka mid ah masjidka weyn ee Nigeria National Mosque. 4 Abidjan Ivory Coast baaxaduleeda Abidjan waxa lagu sheegaa 2119 kiiloomitir oo laba jibaaran magaaladani xarun kaliya ma aha ee sidoo kale waa magaalada ganacsiga Ivory Coast iyo mid ka mid ah magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Faransiiska ku hadla guud ahaan Afrika. Tirakoob la sameeyay 2020 waxa uu muujiyay inay Abidjan ku nool yihiin 5.2 milyan oo qof taas oo ka dhigan in 20% tirada dadka dalku ay ku nool yihiin magaaladan ilaa xorriyadii dalkan ee 1960 ayay caasimo tahay Abidjan. 5 Alexandria Masar 2679 kiiloomitir oo laba jibaaran ayuu ka kooban yahay baaxaduleedka magaalada faca weyn ee Alexandria magaaladani waa xarunta labaad ee ugu weyn Masar marka laga yimaado Qaahira iyo sidoo kale xarun dhaqaale oo muhiim ah 5,380,000 oo qof ayaa ku nool Alexandria magaaladani sidaan horay u niri waa xarun dhaqaale oo gaaska dabiiciga ah dadkeedu ka macaasho iyo goob jiho u ah dalxiisayaasha. ogow Alexandria waxa loogu magac daray boqorkii Macedonia ee Alexander the Great. 6 Qaahira Masar baaxaduleeda caasimadda dalka Masar waxa lagu sheegaa 3083 kiiloomitir oo laba jibaaran kaliya ma aha magaalada ugu weyn Masar ee hooyada adduunku waa xarunta ugu weyn dunida Carabta oo dhan 21 milyan oo qof dad ku dhow ayaa ku nool Qaahira taa oo ka dhigaysa mid ugu dadka badan guud ahaan dalalka Carbeed bariga dhexe iyo Afrikaba iyo magaalada lixaad ee ugu weyn dunida. Qaahira waxa ay ku taal dhul ahraameedka Masar waxayna caan ku tahay buuraha ahraamta ee aadame samayga. 7 Kinshasa DR Congo 9965 kiiloomitir oo laba jibaaran ayaa baaxaduleeda Kinshasa Congo ka kooban tahay waa caasimadda iyo xarunta ugu weyn dalka webiga Congo ayay caasimadani ku taal waxaana la wariyay inay ku nool yihiin dad tiradoodu kor u dhaaftay 9 milyan oo qof. Kinshasa waa magaalada saddexaad ee dadka ugu badan ku nool yihiin Afrika marka laga yimaado magaalooyinka Lagos Nigeria iyo Qaahira Masar. 8 Khartoum Sudan tan ugu dambaysa
iyo tan ugu weyn baaxaduleed ahaan muuqeenan waa khartuumta Suudaan oo baaxaduleedeeda lagu sheego 22,142 kiiloomitir oo laba jibaaran. Khartuum waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalka Suudaan, waana magaalada koowaad ee ugu weyn qaaradda, waxayna baaxad ahaan ka weyn tahay 10 dal oo Afrika ah kuwa oo kala ah Cape Verde, Seychelles, Mauritius, Comoros, Gambia iyo qaar kale.